Jarmalka ayaa wajahaya dacwad gudaha ah oo ku saabsan hubka uu ka iibiyey Israa'iil. Jarmalku waxa uu wajihi doona baaq cusub oo ah in uu la noqdo dhammaan hubka laga iibiyo Israa'iil. Khamiista dacwadda cadaadis badan saaraysa Berlin iyada oo ay sii kordhayaan qaylo dhaanta ku saabsan baaxadda dhimashada iyo burburka dagaalka Gaza. Dacwad ka socota maxkamadaha gudaha ee Jarmalka ayaa weydiisan doonta garsoorayaasha inay si degdeg ah u amarto dowladda inay kala noqoto dhammaan shatiyada hubka ee Israa'iil oo la siiyey tan iyo 7 Oktoobar, markaasoo Xamaas ay bilowday weerarkeeda Israa'iil. Jarmalka ayaa si weyn loogu arkaa inuu yahay kan labaad ee ugu badan ee hubka u dhoofiya Israa'iil, isagoo ka dambeeya Maraykanka, waxaana hubaal ah inuu yahay hub bixiye aad uga muhiimsan UK. Dacwadan ayaa waxaa soo saaray 4 hay-adood oo u dooda xuquuqda aadanaha oo ka wakiil ah 5 qof oo Falastiiniyiin ah oo la sheegay inay ka cabsanayaan noloshooda Gaza, ayna la kulmaan ciqaab wadareed ay Israa'iil ku hayso. Tallaabada sharciga ah waxaa lagu hagayaa wasaaradda federaalka ee uu hogaamiyo xisbiga Green ee arrimaha dhaqaalaha iyo ficilka cimilada, waaxda mas'uulka ka ah shatiyada dhoofinta ee hoos timaada hubka sharciga xakamaynta dagaalka. Waa macquul in la rumaysto in dowladda Jarmalku ay jebinayso heshiiska ganacsiga hubka, heshiisyada Geneva iyo waajibaadkeeda hoos yimaada heshiiska xasuuqa. Heshiisyada ay ansixiyeen Jarmalku ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay mid ka mid ah dacwooyinka hogaaminaya xarunta Yurub ee dastuurka iyo xuquuqul insaanka ECTIR. Dacwadda oo ay u badan tahay in lagu maareeyo dacwado qoran waxay ku yeelan doontaa saamaynta ugu macquulsan ee iibinta Jarmalka ee 3 ee hubka lidka taangiyada. 5 Falastiiniyiinta ah ayaa isugu jira kuwa eheladooda ku waayey dagaalka iyo sidoo kale guryahoodii iyo shaqooyinkoodii, waxaana loo arkaa barakacayaal gudaha ah, ayay tiri dacwadda. Dhammaan 5 carruurtayda ah waa la dilay markii Israa'iil ay rasaas ku fureen xerada qaxootiga ee aan joognay kadib markii aan ka soo qaxnay waqooyiga. Mid ka mid ah dacwoodayaasha ayaa sidaas yidhi. Jarmalka waa in uu joojiyo dirista hubka sii hurinaya dagaalkan. Hooyo kale ma aha inay soo gaarto khasaare aad u xun. Xoghayaha guud ee ECTIR, Wolfgang Kalek, ayaa sheegay in sharciga caalamiga ah iyo xuquuqul insaanka ay yihiin aasaaska. Shuruudaha aasaasiga ah ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Jarmalka ee ku salaysan xeerarka iyo xuquuqda aadanaha waa ixtiraamka sharciga marka uu go'aan ka gaaro. Jarmalku run uma ahaan karo qiyamkiisa haddii uu u dhoofiyo hub dagaal halkaas oo ay ka muuqdaan xadgudubyo halis ah oo sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada. Annalena Baerbock, wasiirka arrimaha dibadda ee cagaaran Annalena Baerbock, ayaa si isa soo taraysa u dhaleecaysay Israa'iil, iyadoo ku tilmaantay Gaza inay tahay cadaab, balse sababo taariikheed awgood Jarmalku wuxuu sheegay in ilaalinta amniga Israa'iil ay tahay udub dhexaadka siyaasaddeeda arrimaha dibadda. Kiisku waa ka duwan yahay kii ay Nicaragua keentay, oo toddobaadkan ka hor maxkamadda caalamiga ah ee Hague ka hor qiratay in Jarmalku uu ka hor yimid heshiisyadii Geneva isagoo sii waday inuu hub siiyo Israa'iil. Dowladda Jarmalka ayaa maxkamadda u sheegtay in ay heshay damaanad qaadka Israa'iil ee ah in ay taxadar badan samaysay, islamarkaana aysan hadda jirin sabab ay uga shakiyaan. Halka Jarmalku uu u dhoofiyey qalabka difaaca ee qiimihiisu yahay 2.374 Israa'iil bishii Oktoobar 2.23, mugga bishii Maarso wuxuu ahaa 1 oo keliya, qareennada dowladda ayaa yidhi. Isla mar ahaantaana, shabakadda waxqabadka sharciga ee caalamiga ah ayaa hadda la siiyey taariikhda 3 Abriil dhegaysiga afka ah codsigeeda dib u eegista garsoorka ee bayaanka UK ee ah in dhoofinta hubka ay sii socon karto iyadoo lagu salaynayo talada sharciga ee Israa'iil aysan ku dhaqmin si sharci darro ah. Waxaa la filayaa in wasiirada UK ay toddobaadka soo socda u soo bandhigaan baarlamaanka sida talada sharciga ay muujinayso in Israa'iil aysan ku xadgudbin sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada, xukunkaas oo ahaa mowduuca dooda xooggan. Xukuumaddu way diiday inay daabacdo talada sharci iyo mid kooban, balse wasiirro ayaa la filayaa inay sharaxaan mowqifka siyaasadda.